Assalaamu calaykum. Barnaamijkeenan waxaan ku soo qaadan doonnaa casharo taxane ah inta Ramadaanka lagu guda jiro, kuwaasi oo sahay adduun iyo tu aakhiraba inoo noqon doona. Waxaynu cuskan doonnaa oo barnaamijkeenan marjic u ah kitaabka la yidhaahdo Zaad ee uu qoray Islaam Jamaal. Qoraagu waxa uu ku bilaabay codka imaamku waxa uu ahaa mid gilgilaya mimbarka, waxaana uu ka sheekaynayay qisadii taabicigii weynaa ee faqiiha ahaa. Waxa uu ka warramayey sidii uu ahaa sabirkiisu marka uu wax baranayo iyo marka uu dadka wax barayo. Waxa uu ahaa dadka ugu cilmiga badan wakhtigiisii. Maalintii oo dhan waxa uu ku qaadan jiray waxbarasho iyo waxbarid. Habeenkiina Allah ayaa u taagnaan jiray oo u cibaadaysan jiray. Khadiibku waxa uu ka warramay taabiciga akhlaaqdiisii iyo xalaal miiradnimadiisii. Aad ayaan ula yaabay oo ula tacajubay qisadaas taabiciga. Qalbigayguna dhinaciisa ayaa u iishay oo waxaan u dhagraaricinayay hadalka khadiibka. Waxaabad moodaa in dushayda shimbiro fadhiyaan oo aan dhaqaaqa ka ilaalinayo. Khadiibkii waxa uu dhammaystiray qisadii taabiciga, waxaana uu ugu dambayntii ka hadlay dharkii uu xidhan jiray iyo cuntadiisii iyo noloshiisii gaarka ahayd. Waxaana uu tilmaamay in uu xidhan jiray maryo googa'an oo aad u dabacsan, midab quruxanna aan lahayn, waxaana uu cuni jiray rooti qalalan iyo biyo. Khudbaddii ayaan ka soo baxay, maskaxdaydana waxaa ku dhex wareegayay ereyadii khadiibka iyo taabiciga wanaaggiisii iyo sifooyinkiisii samaanta badnaa, cibaadadiisii iyo camalkiisii suubanaa. Ayaama ayaa ka soo wareegay, maskaxdaydana way ka baxeen ereyadii khudbaddu ilaa 2 erey mooyaane, kuwaasi oo ahaa ammaantii uu ammaanayay taabiciga iyo xaaladdiisii faqiirnimo. Waan weynaaday. Sawirkaas laga bixiyey wanaagga iyo faqriguna waa uu ila koray, waxaana niyaddayda ku hayay haddii aan doonayo inaan noqdo qof wanaagsan, waa inaan faqiir noqdo. Sawirkaasi sidoo kale waxa uu igula saaxiibay noloshayda inteedii kale, oo xataa maaddada siirada waxaana loogu dhigi jiray in Nebi Moxamed sallallahu calayhi wasallam uu dhagax caloosha ku xidhan jiray gaajo darteed, oo waxaaban u qaadannay in noloshiisa oo dhani faqrigaas ay ahayd. Waxaana naftayda ku weynaaday in faqriga iyo wanaaggu ay wada socdaan. Arrimaha sidan oo kale ahi xataa waxaan ku arki jirnay carruurnimadii musalsalada oo badanaa agtarka filimku waxa uu ahaan jiray nin faqiir ah. Dhanka kalena waxa uu lahaan jiray sifooyin wanaagsan sida naxariis iyo geesinimo, daacadnimo iyo sharaf jacayl. Sidoo kale sawirka laga bixiyey ninka taajirka ah ee hodanka ah waxay ahayd mid ku lamaan sifooyinka xunxun oo dhan: dhac, boob, dil, addoonsi iyo waxyaabaha la midka ah. Sidoo kale waxaa lagu sifayn jiray inuu yahay qof habeenkii oo dhan sikhraansan oo khamriga cabba, reerkiisana aan u fiicnayn iyo waxyaabo la mid ah. Sidaas darteed waxaan aaminay oo naftayda ku weynaaday ereyada ah maalku sidiisaba waa shar iyo xumaan, suhdiguna waxa uu la socdaa faqiirnimada. Nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu ahaa faqiir, ilaahayna waxa uu jecel yahay fuqarada. Damacu waa sifada kuwa qaniga ah, qanaacaduna waa sifada faqiirka. Haddaba talayaabka leh ayaa waxay ahayd in aanan anigu keliday sidaas aaminsanayn ee dadka igu hareeraysan oo dhanina ay taas igala mid yihiin. Sidaa darteed waxaannu noqonnay kuwa ka acuudu bilaysta qaninimada oo Ilaahay ka magan gala. Dareenkayaguna waxa uu u janjeersamay xagga faqiirnimada. Iyada oo sidaas ay tahay ayaan mar keliya waxaan ku baraarugay Nebiga sallallahu calayhi wasallam oo Ilaahay ka magan gelaya faqriga. Allaahumma innii acuudu bika min alkufri waalfaqr. Waa arrin la yaab leh. Nebigu ma waxa uu ka magan gelayaa faqriga annaguna aan u haysanno inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo dhoweynayo. Haddaba dhacdada la soo wariyey ee ah inuu Nebigu sallallahu calayhi wasallam dhexda uu dhagax ku xidhan jiray gaajo darteed, ansixitaankeeda waa la isku khilaafay oo waxaaba la yidhi dhagax ma uusan ahayn ee waxa uu ahaa xadhig uu dhabarkiisa ku adkayn jiray oo badanaaba qofku marka uu shaqaynayo dhexda ayaa uu xidhaa. Balse haddii aynu ka soo qaadno in werintaasi ay ansaxday, waxay ahayd wakhti dagaal lagu guda jiray, dagaalkii Khandaq ee ay gaaladu hareereeyeen muslimiinta, magaalada Madiinana ay go'doomiyeen muddo bil ku siman. Taas haddii aynu ka nimaadno, Nebigu sallallahu calayhi wasallam noloshiisa caadiga ah waxa uu ahaa mid qani ah oo mararka qaar waxa uu ehelkiisa u dhigi jiray raashinka ay sanad cunayaan. Balse dhagaheena waxaa soo gaadha uun dhacdadaa hore ee aynu soo xusnay, iyo inuu Nebigu sallallahu calayhi wasallam mararka qaar uu reerkiisa ka waayi jiray wax uu ku qoraacdo, dabeedna uu iska soomi jiray. Markaas ayaynu u qaadannay in Nebiga sallallahu calayhi wasallam uu faqiir ahaa. Haddaba aynu ka hadalno suhdiga iyo micnihiisa. Waxaa la soo wariyaa Sufyaan athawri inuu imaam ku ahaa suhdiga,
kana mid ahaa culimmadii waaweyneed ee wakhtigiisii, waxaana lagu magacaabi jiray amiirka mu'miniinta ee xadiiska maadaama oo uu ahaa nin xifdin badan oo caalim ku ah axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasallam. waxa uu ahaa nin cibaado badan oo habeenkii oo dhan salaad ayaa u taagnaan jiray. mid ka mid a ardadiisii ayaa waxa uu yidhi, waxaan arkay Sufyaan athawri oo xaramka ku sujuuday maqrib kadib, waxaana uu ka soo kacay sujuuddaasi eedaankii cishaay. haddaba isaga oo sidaas u cibaado badnaa oo caalim ahaa, waxa uu ka mid ahaa hantiilayaashii muslimiinta. mid ka mid ah dadkii la noolaa ayaa waxa uu ku aflagaadeeyey hantidiisii, isaga oo leh, sidee ayaa suudiga iyo hantidu meel u wada geli karaan? markaas ayuu Sufyaan athawri waxa uu yidhi, aamus, haddii aanu jirin maalkani, waxaan mandiilka ama marada gacmaha iyo afka la iskaga masaxo u noqon lahayn kuwa madaxda ah, oo micnaheegu yahay iyaga ayaan u shaqayn lahayn oo waxayna idhaahdaan unbaa ummadda u sheegi lahayn, maadaama oo ay iyagu gacanta nagu hayaan oo na biilinayaan. waxaana uu yidhi, saahidnimadu maaha wax yar oo la cuno iyo dhar adag ama jeexjeexan oo la xidho, ee waa in aanad hantida qalbigaaga ku xidhin waayitaankeeda iyo heliddeedaba. cumar bin khadaab radiallahu canhu ayaa waxa uu arkay nin masaajidka iska jooga oo iska cibaadaysanaya. markaas ayaa uu yidhi, muxuu ahaa ninkani? waxa lagu yidhi, waa nin caabid ah oo saahid ah. markaas ayaa uu yidhi, oo yaa wax siiya? waxay yidhaahdeen, annaga unbaa wax siinaa. markaas ayaa uu yidhi, dhammaantiin isaga ayaad addoommo u tihiin. imaamkii weynaa ee abulxasan shaadali ayaa la arkay isagoo xidhan maryo wanaagsan oo qaali ah. markaas ayaa mid ka mid a kuwa aan dhab ahaan saahidka u ahayn ee isku ekaysiiya ayaa waxa uu ku yidhi, ma dharkan ayaa ilaahay lagu caabudaa? abulxasan waxa uu ku yidhi, waryaakaagani, ma og tahay in maradaydani ay tilmaamayso inaan dadka ka kaaftoonahay, adigana maradaadu ay ku tusinayso inaad dadka u baahan tahay? qisooyinkaas waxayna fahansiinayaan micnaha dhabta ah ee saahidnimada iyo qofku inuu faqiir yahay inaanu ku noqonaynin saalix ah oo saahid ah. qaybaheena dambe taasi ayaa ay noo sii faahfaahin doonaan. barnaamijkeena maantuna qaybtiisii koowaad halkaas ayay noogu eeg tahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.